janalku waa reemadu komandhe okay walaal su'aalo yar baan rabaa inaan ku weydiiyo ugu horreyn magacaaga oo saddexan قاسم عبد العثمان قاسم عبد العثمان qaasim waxaa noo sheegtaa waxaad nala wadaagtaa naynaas carruurnimada lagu oran jiray ama haatan bal gaabow dabcan waa gaaban tahay bay kuugu baxdaa اساس okay waxaad noo sheegtaa gaabow xagga diintayada say isku tihiin كوريج waa isku fiicantiin miya okay waxaad noo sheegtaa xaaska u horreeyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuwaylid okay gaabow ma la baatahay adigu mise dhadi تايس ويدين ماله oo sabab jinsiga tahay ma lagu weydiin karin ما يديس ويدين ماله تاس sabab macnaha adiga ka tahay oo kaliya noo sheeg sababtu waxa weeye waxaan ahay lab baata maxaa ku cadeyn kartaa tawa ujeedaa bidaarta oo tagtay weeye bidaarta okay waa maadsanta waa maadsanta reemadu kuman walaalo dhawa okay magacaaga oo saddexan ayub cabdirashiid caseer okay ayub waxa nala wadaagtaa horta ma la baata mise dhadig la baata maxaa ku cadeyn kartaa waxa cadeyn kar ma sheegi karo waxa ku cadeyn kar ma sheegi kadib maxaa ku sheegata waayaa dhawaadkii la baan waa oo malaynaysaa ma hubtin laakiin okay walaal waxa noo sheegtaa naynaas waqti ciyaalnimadaada lagu oran jiray ama haatan ma lagu dhaho jiray هارون okay walaal xagga diintiisa isku tihiin caseer diinta isku fiicana saa okay waxa ii sheegtaa xaaska u horreeyay nabi maxamed guursado wallahi shaami sheeg kartaa waa gama kugu adagtaa su'aashaas okay waa maadsantaa walaal السلام عليكم walaal ku soo dhawo reemadu komandi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته okay magacaaga oo saddexan la wadaag مهيب عبد الرشيد جامع okay mahayb waxaad noo sheegtaa naynaas waqti ciyaalnimadaada lagu oran jiray ama haatan ba lagu dhaho aniga cadde ba naynaas ahaan kuula ciyaalnimadaadii haddana hadda mas'uulka igu yeeran dhalinyarada badanaa waa ka muuqataa mas'uulnimadu okay mas'uul waxaad noo sheegtaa xagga diinta iyada sida isku tihiin ما شاء الله waa dhal culimo ahay baan diinta ما شاء الله waxaad noo sheegtaa xaaska u horreeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam khadiija bint khuwaylid radiyallahu anha okay muhayb ma la baatahay mise dhad aniga inuu la baaha la baataha maxaa ku cadeynaysaa xaaskayga inay wacaya ayada inay sheegaysa ma adiga hal xaaskaaga inaan weydiino ma ahane ma wax kale oo noogu cadeyn ka dhaay jira wax kale wax kale waa jiraan waa hadda laakiin bulshada hortooda aan soo bandhigi kara maaha waa waxyaabo qarsoon waa maadsantaa walaal waa maadsantaa assalaamu calaykum waraxma soo dhawo walaal soo dhawo calaykum salaam waraxma okay walaal magacaaga oo saddexan channelku waa reemadu comment magacayga waxa la yiraahdaa hiira dalamsade waa naynaasa miyaa mise waa magacaaga sax magacayga caadiga la ii bixiyay hiira dalamsade waa magac horeeya Soomaaliya oo aan arko waa magac aad u adag magacayga weeye okay hiirad waxaad noo sheegtaa ma la baatahay mise dhad ma aad ku kala cadeysay la ii keent adiga ma la baatahay mise dhad waxa ku saxdid inaan heshid maahay miisi kale adaan ku weydiiyay macnaha la baana la baataa ma ku cadeyn kartaa marka waxaan ku cadeyn karaa dee wax la imaw tusaale aan kugu cadeeyo ma adiga waxa ku cadeyn kartaa hal astaan oo ku cadeyn kareed ama muuqata ama mid kaleba inaad nolo sheegtid ma garkaas ku cadeyn garka ku cadeyn kartaa okay hiirad iyada xagga diintiisa isku tihiin diinta waa isku fiican okay waxa noo sheegtaa xaaska u horreeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam khadiija bint khuwaylid okay waa maadsan tahay assalaamu calaykum walaal ku soo dhawo reemadu komandi bow waa dhaw calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh okay walaal su'aalo yar oo kaftana baan rabaa inaan ku weydiiyo diyaar muuta diyaar weeyaan bow okay waxaan nala wadaagtaa horta magacaaga saddexan sharmaarka siciid shire okay waxaan nala wadaagtaa sharmaake naynaas yaraantaadii lagu dhihi jiray ama haatan ba lagu dhaho yaraanteed mise haddeer labadaba haddii aad isku kala dir kadib may yaraanteeduna magac baa lahaa haddeerna magac baan leeyahay okay nala wadaag labadaba yaraanteed madaxay bay dhihi jireen madaxay okay haddana magacaaga hadda laak sharmaani baa ku caansanaa okay sharmaani xagga diinta iyada sida isku tihiin okay waxaa noo sheegtaa nala wadaagtaa xaaska u horreeyay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa ugu horreeyay khadiijo ما شاء الله اوكي شرمك ما لا بعد تاي ادغو مسددي see kula tahay ما adiga ahaantaada loo sheeg macnaha la baahan ma ku cadeyn kartaa ya ma ku cadeyn kartaa aniga hadalkayga timahayo qaabkayga ku cadeyn kartaa okay waa maadsan tahay salaam ya okay soo dhawo walaal ku soo dhawo reemadu komandi adoo walaal okay magacaaga oo saddexan maxamed okay maxamed waxaan nala wadaagtaa ma la baatahay horta mise dhadig lab maxaa ku cadeynaysaa waxna bulshada la soo raacdin karina baa jira
waxa aan bulshadaada soo dhexdhigi karin baa jira oo ku qarsoon miyaa wax muuqda ma jiraan okay waxa noo sheegtaa naynaas ma leedahay mid yaraantaadii ama haddaba aad joogtid okay maxay tahay dhicis okay waxa lagu baxshay markaa maxaa kugu baxda rag saaxiibada ay dhijiyo yaraa gamnaan ma lagu bixiyay okay dhicis xagga diinta isku tiiniyada fiicana isku fiicantiin ma sha Allah waxa noo sheegtaa xaaskii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu horeysay khadiija bint khuwaylid ma sha Allah niyar oo fiican baa tahay waa maadsantaa walaal alaykum soo dhawo walaal وعليكم السلام ورحمة janalka waa reemadu comedy ما شاء الله aad baan soo dhaweynayaa okay walaal waxaan rabnaa su'aalo yar oo kooban inaan ku weydiino ugu horeyn magacaaga magacayga waa Saciid Cabdiraxmaan Maxamed okay Saciid waxaad noo sheegtaa ma jidhaan naynaas yaraantaadii carruurnimada lagu oran jiray ama haatan ba lagu yiraahdo aad Saciid Timo waa naynaastaada yaraantaadii yaraanteed jailhuul haa aad iyo aad ilaa ma hadda okay walaal waxaad noo sheegtaa Saciid horta ugu horeyn ma la baatahay mise dhad lab baan ahay aniga maxaa ku cadeyn kartaa wax walba waa jecesha baan ku cadeyn karaa may adiga hadda astaana ku cadeyn kadib oo muuqata nala wadaag bal noo sheeg astaan hadda aniga ii muuqata dee qaabkay jeclaan lahayd inaan kugu sheego maya adiga astaantaada macnaha waxaasaa ku cadeyn ka dhaadhe ilaan adiga la rabaa inaa aad iyo aad garkaasaan ku cadeyn karaa okay waxa xagga diinta sida isku tiiniyada ma sha Allah iyadana kuma xumi okay waxaad nala wadaagtaa xaaskii u horeeyay nabi maxamed guursado ma sha Allah khadiija bint khuwayd ma sha Allah jazakallahu walaal waa maadsantaa aad iyo mahadsantiin السلام عليكم walaal ku soo dhaw reemadu comedy waa ku dhawaa walaal macaan kugu soo dhawaada maya kanal ku soo dhaw aniga igu soo dhawaane okay waxaad nala wadaagtaa magacaaga oo saddexan ugu horeyn walaal Saciid Ismaan Axmed baan idhaa Saciid waxaad noo sheegtaa ma jidhaan naynaas ciyaalnimadaada lagu oran jiray ama waqti xaadirkan ba lagu dhaho haa okay nala wadaag wasa la oran jiray wase okay wase maxay kuugu baxday macnaha naynaastaas anoodan hadda hay weydiine mid kale iga dhig oo wax maxaa dhacay macnaha maxay kuugu baxday naynaasta waa naynaas fanni ah laakiin maxay kuugu baxday macnaha waa wax hadaan sheegi karin macnaha aad iyo aad hawla kale ku wanaagsanay okay Saciid waxaad noo sheegtaa naynaasta kala afkaygu ma qaban karo kugumana wici karee waxaad noo sheegtaa xagga diinteeda soo isku tiin oo isku fiicanna ma sha Allah waxaad noo sheegtaa xaaskii u horeeyay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam عايشو ما aadan garan okay Saciid waxaad noo sheegtaa xagga macnaha ma jidha adigu ma la baatahay mise dhadig waxa ma garanayay waxa tahay ma garanaysaa maxaana ma inay weydiinaysaa waxa tahay maxaa u malaynaysaa adigu hadda ma garanayo waxa tahay labi midun balaadu qabso ma labi dhadig lab waa iska tir laakiin waxa tahay ku cadeynaysaa ma garanaysaa maxamed ma sax وما تصدق السلام عليكم ولا الكسو دو ريمدو كومندي وعليكم السلام ورحمه الله كله ولا المعان اوكي magacaaga oo saddexan ugu horeyn عبد الشكور عبد الله محمود اوكي عبد الشكور waxaan rabaa su'aalo yar oo kooban inaan ku weydiiyo waan guda galeynaa waxaan la wadaagtaa naynaas waqtiga carruurnimadaada lagu oran jiray ama haatan ba lagu yiraahdo anu hal naynaas baan leeyahay naynaasna waa Cabdi Shukur dambaba macnaha maxay kuugu baxday bilayr ahaan kubad waa xag sports baa tahay okay dimbaba waxaad noo sheegtaa ma la baa tahay ugu horeyn mise dhadig aniga laba la baataa ma hubtaa la baataa ugu adkaysanaysaa okay waa yahay Cabshukur waxaad noo sheegtaa xagga diinteeda soo isku tiin اوكي waxaan nala wadaagtaa xaaska horeeyay nabi maxamed guursado alayhi salaatu wasalaam khadiija bint khuwaylid radiyallahu anha waa maadsantaa walaal waa dhawa walaal qaali اوكي magacaaga oo saddexan maxamed Usmaan Cabdullaahi ya maxamed Usmaan Cabdullaahi maxamed Usmaan see u madluunsan tahay macna maada soo quraacan miya mise waqti qadaaba la joogaa waqti qadaaba la joogaa kor hadal isnoolay okay maxamed waxaan noo sheegtaa naynaas carruurnimadaadii lagu oran jiray ama haatanba lagu dhaho atra ya atra carruurnimadaadii lagu dhigi jiray haatanba okay maxay kuugu baxdaa waaga baxay geemka baawajiga si fiican u dheelaa geemkaas aad u dheeshaa okay atra waxaad noo sheegtaa xagga diinta soo isku tiiniyada oo ku fiicana xaaska horeeyay nabi maxamed magaceeda oo nala wadaag khadiija bint khuwaylid ma sha Allah okay atra ma la baa tahay mise dhadig lab maxaa ku cadeynaysaa dugsiga yaala aad iyo aad okay waa mahadsantahay walaal عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. okay magacaaga oo saddexan عمر جامعة عدي. okay عمر waxaad noo sheegtaa naynaas waqtigii yaraantaada ciyaalnimadaada lagu oran jiray ama haddaba lagu yiraahdo naynaas markii aan yara la oran jiray waxa la oran jiray afyare hadda waxa la yiraahdaa dhagalaab mar kale waxa la oran jiray asbaro waa badnaay okay waxaan la wadaagtaa baad noo sheegtaa maxay kuugu bixin naynaasaha qayb ka mid ah sida asbaro oo kale
asbaro kale waxay igu baxeen koorsaan waxaan ku jiray lagu barto isgaarsiinta oo midda dhiidhaada la yidhaahdo oo lagu diro raadiyayaasha markii aan jooga xoogaa madaxa layga qaban jiray markaas waxaan jiray asbara dooranaya markaas macallinkaygu wuxuu baxshay asbaro macnaha kaniin xilliga jiray miyaa la yiraahdaa waa kan asbaraha ah oo markii madaxa qofka xoogaa qadada qabtaa la qaato aad iyo aad waxaan jiray asbara soo aspirin iyo asbara ha halkaas ka wada okay waxaad noo sheegtaa iyadana xagga diinta see isku tiniyada diinta muslim baan ahay wuxuun baan ka garanaya waa isku fiicantii Soomaa waxaad noo sheegtaa xaaskii u horeeyay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi salaatu wasalaam xaaskii ugu horeeyay sida aan ku hayno taariikhda islaamka iyo culimada ay noo sheegeen waxa la oran jiray Khadiija binti Khuwaylid ma sha Allah okay ma la baatay adigu mise dhadig horta asbaro ما هذا عمر باللي يراه يا أصبر أسمع حروف. أوكي وانا ناس تادي أوكي عمر واحد نلو لكتها ما لباتها هرت مسدد قادو. ما لبانها منها ما في صوماليا هذين السبنة هذا لبانها. أوكي ما حكوا عضين كنا. واحد كوا عضين كنا أنت لبت الواحد أنت لو ضدك ولا بيدتي. وادتي. أستامي لبك يا مغرضة. أوكي وما تصنتاي. كويديو. واحد نوشك وقرينا ناس من هذا مد عيال ماذا هذه أما ماذا هذا وقت حاضر كامل مد هذا نيو مورغان على مورغان لكن عروني ما هذينا عروني نيو الحفظ اللي تقول سوي دين قرصة واحد ما متم يا دقة أوكي ويا مورغان محينا ناس تا مورغان كوكو بحدا نيو هو دنيرت أي بحسين تبغى هذا دنيرت سير احترام مرة دنيرت أي بحسين مقع صوبتي كوكو بحيان معناها موا يقع هذا وحكي لنا صن ما يس وحي يقول بحدا نيو هذا نين نسكع هذا الدجال بدل مرة يعني كيو نو مقع يقول الرجال مرة تاجر يصير سياس يقول تشين ها دقاليهم بدايد أوكي واحد إنه نوشكتا حق دين تسكتي وحواك قرقرانيا وحواك قرقرانسا ما شاء الله واحد نوشكتا حاسك أورينا محمد قرصد عليه الصلاة والسلام يو وحوم لنا خديتشي نيته وأم لنا رضي الله عنه خديتشي هيد وارنتا واحد نوشكتا أيضا ملبات هاي مورغان مسدد نيو لبات نبان هاي لباتا موتا وهو نيو معكو عديني صار معكو عديني أقول لك جوكتا ويلقاقو بايو بالسينا الله حينا ندقاي السلام عليكم والله الكسو دوري مدكم عليكم السلام ورحمة الله كل وقت وهرين مقعقة وصدحن مقعقة صدحن محمد عبد الله محمد أوكي محمد سؤالي يروكوبن بين ربعنا كويديو وهرين ما جدا ناس وقت عيال ماذا اللي يقولون شيء أما وقت حاضر كان بالله ناس عيال ماذا اللي تواجد تمشي ولا اللي تري تمشي تنمذ هذا وقت حاضر كان هذا اللي مدوه علشان طبعا من الناس هذه هراء وكوس عطا اوكي تمشي واحد نوشكتا حق دينتي هذا سوسكتي واسكو في عنا ما شاء الله واسكو في عنتي اوكي waxaan ku weydiinayaa waxa ay sheegtaa xaaskii ugu horeeyay nabiga maxamed alayhi salaatu wasalaam waa khadiija bint khuwaylid okay waxa iyada ay sheegtaa ma la baatay tama jilc mise dhadib la baatay maxaa ku cadeynaysaa halsaan waxaan ku cadeynayaa inaa ahayd nin baa ahay Soomaaliya lab iyo dhidig been nin dabcan astaan aad ku cadeynaysid ama mid qarsoon ama mid muuqata ma wax jiraan wuxuu jiro waa waxna maxaa kamid ah nin inaagii baa isku mid ah halsaan ma astaan noo sheeg macnaha inay soo isku mid ahayn waa la og yahay laakiin adiga ka tahay iyo waxa ku cadeynaysaa noo sheeg hadana waxaan ku cadeynayaa waa iska muuqdaa Soomaaliya qof wuxuu yahay isma qariya okay waa maadsantaa wala